ilmahaaga 20 daqiiqo inaad la sheekaysato maalin walba bal isku day 20 daqiiqo kuma jirto baa la min غير توجيه ولا نص في waxbarashada kala hadlin homework kala hadlin 10 kala hadlin just kaliya sheeka ka dhig sheekaysta 20 daqiiqo waqtigaaga dhan 24 hour meel 20 ka siin weyd طيب number 2 waxa kamida التعبير waxaad u sheegtaa ilmahaaga inaad jeceshahay maalintii u fiirso waxa laga yaabaa la yaabto 5 jeer ilaa 10 jeer waxaad ku tiraahdaa waa ku jeclahay jumcadii ku horeysay waxaan joogay Toronto masaajidka Khalid marka waxaan ku yiri bal tatbiiq ku sameeyay practice arintan habeenkii muxaadaro aan ka soo jeediyay aaba ayaa intaan fadhiyo muxaadaradu socotay wallahi weegii hore dhacday qisadaas intii la fadhiyay baa waxaan ku yiri bal hadda waxaad ku dhahdaan waan ku jecelahay ilmihiin u sheeg hadda intaad fadhidaa aaba wuxuu u qoray gabadhiisii aabo waan ku jecelahay waana ku duceeyaa isla second daqiiqadii waxay u soo jawaabtay aabo waan ku jecelahay waqti walbana waan ku duceeyaa markaan muxaadara ka baxay buu yimid wuxuu tusay message kale oo uu u diray 25 maalmood ka hor oo uu ku yiri aaba isoo wac kelimadaas oo adeegsan aaba isoo wac 25 maalmood gabadhu dhalimeyn uu jawaab hal kelimo kuma dhig markaan iri hadda bal isku day yaa wuxuu ka bilaabay aaba waan ku jecelahay waxay tiri waan ku jecelahay aniguna isla saacadii marka macnay sameynaysa goorma kugu dambeysay ku tiraahdo waxa la yiri niman baa waadhow laga qaaday interview waxa la yiri kulligan waxa la idin weydiinaya hal su'aal oo isku wada mid ah goorma idin ku dambeysay xaaskiina ku dhahdeen waan ku jecelahay marka mid wuxuu yiri maanta midna shalay midna daraad mid weeygi hor mid sanadkii horaan markuu yiri waa ku jecelahay waxa la yiri hadda bal message kan u wada dira kulligan message ka wuxuu ahaa waa loo dhiibay waxaad ku tiraahdaa qof walba xaaskaaga waan ku jecelahay يعني سيدا عين نوح وخلدينا بان ربعنا وقتصو إننا واحد بدن فجودا بانوس أصعدا إننا كنا إننا كلفوجان هذا الرير تاين إننا كلفوجان تكاني هذا أوبا تاين إننا كلفوجان توارد كأكاني مسج كيبه والله درين بركاسوني ولا بيروا كل شيء عليه تيو الرئيسي أو سوج مركب حالة جوابه إذنكوا آخريننا نقول بو بسوج سمايا هذا آخر جواب تنيك على السوق قري ده كان وين مقليا قبل ديو الرئيسي وحي سوق قرتي miyaad soo waalanaysaa maanta tii ku xigtayna waxay qortay mahooyadaaba inoo soo socota tii saddexaad waxay tiri ma waxoogaa lacag baad iga rabtaa jawaabo noocaas ah kulligood soo wada qoreen 10 jawaabood oo kala duwan bay soo qoreen mid kale waxay tiri oo wacajab badnayd haddaada ii sheegin message-kan cidaad u dirtay guriga maanta imaan maysid يعني يدا كمون وان كجعله لكن تو كلا صورة قال إنه كويرا وان كجعله صوما مركب وحصاب بحين نتائج بالرا مركب محاكيمد وحاكيمد إنه سنمت كون أديكسن بين إنا هيد إرجع إلى هاي إن شاء الله يبان كويرا وان كجعله ويا لما يابتين صوما منكم ورا نحاس كيس وان كجعله مركب عرورتين أن كرهنا وان كجعله شنجر إلا 8 بالآثار كي ريت كيماد تجابي أضو مانت إن شاء الله عاود تجابي waxa inta ka duwan 5 jeer ilaa 10 jeer amaan ilmaha yarka waxaad ku amaantaa ficil sameeyay homework ka shaqeeyay 10 soo bartay wuxuu sameeyay ku amaan ama waxaad ku amaantaa ashakl al-khariji muuqaalka ka muuqda sidoo uu labisan yahay soo timaha u soo jartay sidoo ilmuhu wiilkaaga sidoo ku amaan amaanta oo amaan waxa laga yaabaa tiraado ma istusba maxaa loo amaanaya waxyaaba ajabta badan tijaabinay adiga weyn hadii lagu amaano waad kala fadfadaysaa kulligan amaanta waan jecelahay xaqiiqo way arintaas ruux aan jecelayn amaanta ma jiro marka ilmaha yarka maxaa ma leeyahay taasiirka ku sameynayso طيب waxa kamida waxyaabaha loo rabno inaan ku toosino nasaaixda 2 jeer aaba waliba ama hooyo waliba ilmahooda 2 jeer asbuuci guriga bal kala bax oo nishaad ka baxsan guriga la samee wuxuu rabaa noqdo ilaahu ma socod soo sameeysan kubadda la soo ciyaar caruurtiina kubadda wada magaaladeena meelaha caruurta lagu ciyaarsan raac waalidkii hooyada raac la soo arag طيب waxa kamida
laba jeer asbuucii reerku ha isla cuntay carruurta la fadhiiso cuntada way ka duwan tahay midda hadda guryaha laga sameeyo laga yaabo wiilku inuu mar yimaado cunteeyo gabadha timaado waxeeda iska soo ridato ma waxa laga rabaa hal habeen oo la balansan yahay reerka dhan ay dhinac ka soo wada fadhiisanayaan xeerada afarta dhinac laga fadhiisto soo xusuusataan waagii hore sidii loo wadaagi jiray cuntada dhinacyada laga fadhiisan jiray طيب la fadhiiso carruurtaada meel degan adigoo la sheekaysan